ما أنت وحان ربنا إنا كشاكين نن كتابك إلهي قرآنك كريمك سفي عن أكرامي سفي عن أبرتي وقت بدن كليه ننكاس وحو إلهي أبالكدي مسلمين تبادي عرب إيا عجنبو إني مقعي سيقانان عدكي سنة جعليه ننكاس وحو نقضي قفك أغهري أو قرآنك دوبو حتى معلمين تأرضي ذا قرآنك برو وحي لها هبل زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة وبرنامج عصب عن بلابي دون أولي واري ميسيدي وروناك سنها كاها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال مين والبدون كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة لباتن إيو أفراد أو برنامج كي أها واري ميسيدي ورها كاهرو برنامج كي أها واري ميسيدي وروناكسن البرنامج كان لي راح واري ميسيدي وروناكسن هكاهرو وبرنامج أسبوع له معلم والبو سنين حلقة أيان سوسي دينا لبس سؤال يا لوغو تلقلي هدفك أما قولك أما يولك لغا ليه هيني ومحي برنامج كان وحا لوغو تلقلي أديغا لوغو تلقلي قار أهان دلنيارada Soomaaliyeed dhalinyaro caqli badan waaye meel kastay tagaan wax ku sameeyo sidaa darteed waxaan rabnaa inaan dhaho tahriib ha gelini wadanka joogtid wax ka qabso hadafka laga leeyahay ama yoolka laga leeyahay waxa waaye dadkii cudumada ahaa oo adduunka wax bedelay inaan taariikhdooda gadaal ugu noqono aqrino faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun صحابة ما كشيكينين وحال اللي صحابة ددوا وين والنبي قاسو تربيي انت حدا كشيكي صحابة معها ولا لي الحلقوين كي لصور في سدحي لباتن لبي لباتن كوي لباتن وحان كسو شيكيني ننحرص أمير المسلمين كأوهري لو بحي مقعس أوهري قاتي أندلس بالبادي دولة المرابطين ليراهو كمد أها عمود الفخر اللي فقدبرك الدولة داس كمد أها أيا كسو شاكيني دارت ننكاس تاريخي سيء وناقو قبتي كنا قحلقوين كي لصودافي أما إسنينتي لصودافة أسيبو أن يستيرسو بليسي في عنه دقيسو ما أنتنا إن شاء الله تعالى وحان ربائنا كلو داقو نن آد وحولص وقيمة بضن مسلمين تبادي أي قانان قار أهان dadka quraanka lagu tiriyo ahlul quraanka walaal waxa jiri nin la dhihi jiray Khaliil magaalooyin badan oo Masar ku taalo ayuu degay finally wuxuu soo degay magaalo la yiraahdo Shukr Namla la yiraahdo oo gobolka Banta ku yaalo wuxuu aad caan ugu ahaa meel walbo lagu tukado horku arko oo masalli oolin isla markii uu soo dhigi jiray مصر قفكي تجاي قانا وحاجر ميلا بدن ومصلى جرت إمارة كستو حلا مصلى لهذا مساجده هو وين أكو جرين مركني كميل كستو أكو لقطو كراي مصلى كستو هذا أكو مسجد أودين وكينا وحول ديجري حسير وديجري أما الدرين سأقول قانا هذا صومالي نحي جبر وناكسنو رات سدي جبر وسك جور سدي ربادية لكن دين تنجي القرآن كان وحير تقانو إلهي وحوك أرزاقي أما كأرزاقي ناكتاس كأرزاقي ويل كاسنا وحو الشيء تضبئي طبعا بش سجالات سبتمبر سنة كان مركو أها كن سجال بقول طبعا تضبط ميلادي مركي إهاد ويل كاسنا وحالو بحيي محمود نيكي هبين هذا كم دهور رياضي وحو كل رياضي لفدبر كيسو كسو بحايا عنب dad badan cunayeen qof walba imaana wuu cunaa wuu ka sii dhaqaaqa mana dhamaanayo
riyada mar kale kusoo noqoto, mar kale kusoo noqoto, mar kale kusoo noqoto. marka dambe wuu baxay, wuxuu u tegay sheekh, wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaa ii fasirtid riyadan. sheekhii wuxuu yidhi riyada ii sheeg. riyada markii loo sheegay wuxuu ku yidhi caruur ma leedahay? markaasuu yidhi haa waa leeyahay, wiilkan maxamuud la yidhaahaan leeyahay. markaasuu wuxuu yidhi wiilkan wuxuu yeelan doonaa sha'ni, qof wuxuu noqon doonaa caalim ah. waxaan rabaa inaad ku dadaashid oo hadda meesha maqra'ada dugsiga qur-aanka lagu barto iyo macaahidda islaamka ee azhar leedahay gey. aabihii isla markii kamuusan labalabaynin, wiilkiisa wuu kaxeeyey, wuxuu kusoo qoray machad taxfiid qur-aan uu kusoo qoray oo ku yaalo magaalada danta ku yaalo. ayaga tuulo ka baxsanay degan shubranam la yidhaaho. cunugaas maalin walba tuuladuu kasoo lugeynaa, wuxuu imaanaa magaalada, qur-aankuu baranaa, haddana wuu noqonaa, tuuladuu ku noqonaa. 8 sano markuu gaaray qur-aanka wuu dhameeyey, wuuna xifdiyey. caruurta i dhagaysanayso, meeqa sanaa jirtaay hadda? 10 sano maa jirtaay? 11 sano maa jirtaa? mise 8 sano? haddaa jirtidna qur-aanka intay maraysaay ma xifdisay mise nusaa gaartay mise weli maba u dhawaaninbo mise waa aqrisaay weli maadan xifdinin? waxaa loo baahan yahay cunugan 8 sano jiro qur-aanka xifdiyo kalo inaad noqotid ama ka fiicnaatid. 12 sano markuu gaaray waxaa lagu qoray machadkii weynaa oo jaamacadda ahaay ayaa lagu qoray siduu qur-aanka u xifdiyo. 1 sano markuu dhiganayay qiraa'aat al-10 dhan wuu xifdiyey. 13 sano markuu gaaray 10ka qiraa'o wuu yaqaanay kelima ahane number 1 ayuu ku noqday. sanadka markuu ahaa 1944 idaacat alqaahira, raadiyaha qaahiro, waxay iclaamiyeen tartan qur-aan. qofkii soo baxane wuxuu duubaa qur-aankuu duubaa. dad aada u tiro badanaa galay. dadka galay waxaa ka mid ahaa marka saaxiibkeena maanta rabna inaan ka sheekeyno, maxamuud khaliil. number 1 ayuu noqday. kadib idaacat alqaahira waxay siisay fursadii inuu qur-aanka ilaahay duubo. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. markaas aan rabnay inaan ka sheekeyno maxamuud khaliil aan ku haynane waa الشيخ القارئ المقري محمود خليل الحصري. qof walbuu yaqaanaa sooma. xusari marka waxay ka timid waxaa waaye aabihiisa ayaa xasiirka ama darinta masaajidaha ama musallaha dhigi jiray. marka waa naanees aabihiisa loogu magac daray. reasonka loogu magac daray wuxuu aabihiisa nin wanaagsan oo sadaqada jecel, bidaat masaajidaha jecel inuu darimaha dhigo si sadaqa jaariya ugu noqoto waaye. marka sheekh maxamuud khaliil al-xusari aabihiisa khaliil al-xusari waxaa xusari loogu bixiyey. marka waxaa waaye darintuu dhigayay masaajidka. xusari waa xasiirka laga soo qaatay. xasiirkana waxaa waaye waa darin waaye. allah u naxariisto. idaacat alqaahira waxay siisay marka inuu duubo qur-aankii because asigaa soo raayay soo maahan. 1961 markay ahayd qofka ugu horeeyo oo duubay wuxuu ahaa qiraa'at xafs can caasim. waa qiraa'adan hadda badi aan naqaano xaramka laga tukado. qofka ugu horeeyo cajal ku duubay asiga waay. 10 sano ayay idaacat alqaahira isticmaalaysay, qof kale ma isticmaaleynin. 10 sano kadib ayay waxay go-aansatay marka inay haddana u yeerto ay qiraa'o kale ka duubto. qiraa'adaasna waxay u ogolaatay marka dadkii kale inay sii duubtaan ama raadiyayaasha kale inay isticmaalaan. sheekha noloshiisa marka 1950 markay ahayd waxaa laga dhigay sheekh alquraa. masaajidkii ama madarasadii danda ku taali masjid al-axmedi la dhahayay ayaa laga dhigay 1900 waxay ahayd 50kii. 1955 markii la gaaray iidana miilaadigana waa laga soo wareejiyey danta. waxaa loo soo wareejiyey qaahiro. masjid al-xusein waa masjid azhar dhinac bidixda aga yaala oo qofkii qaahiro tegay ayaa garanayo. ayaa waxaa laga dhigay marka
مقرئ أما قارئ أما شيخ القراء ومساجد كاس لاقا ديجي أزهر جامعي وينايا درس لاقا ديجي كون سقال بقول كنتن إيو تضبط مركي إهد وحا لاقا ديجي مفتش عام للمقارئ المصرية مفتش قف كستو قرآن أقرينا هي أما ربا قرآن إنو دبرو أما ربا إنو قرآن قرو كل أسيا الله وسكياني مركا وحو نقضي شيخ القراء أيو نقضي مفتش العام أيو نقضي مركي بوسكاس لو ديبي كدب وحو كفكيري أرين أن لاقوه الرينين إنو سميو وحو يري نقابة إنا أسمينا ومعلمين تان كرداسا وإنا أسوكينو نقابة أسمينا كو مقالة كستو أما تولة كستو مصر كتالنا وإنا كفرنو مكتبة للتحفيظ كفرنو حفيظ أما مكتب أو إلاليو تحفيظ كأي معلمين تا وحفظنا إلاليو حقوق ضوضاني سيو كن سقال بقول كنتن إيسيديد مركي إهدنا وحو سمي وح أهان دادك بدي سمينين أرنتاسنا وحي تقف مركو عالم نقضو إنو كسو نقضو أرضينيمو وأذكتهاي داس واي عمر بن الخطاب أما سلف كقاركو ذو وحا لقورين جري إمام الشافعي أن لقورين تعلموا قبل أن تسودوا وحبرت انتاذا مضح نقولين وحبروا انتاذا وحشيين وحبروا انتاذا وح أقرنين لأن قفك دو مضح نقضو أم وحشيتان أو بالله إنه كسو نقض أرضينيمو وحبرتو ويكو أتكانيسا بكاس وحو قال ميرو دادك وحبرو مرة بإنه هوس كسو نقضو لكن شيخان محمود خليل الحصري was totally different كون سقال بقول كنتن إيسيديد مركي لقاري جامعة دي إسكو قري وحو يري وحان ربا إنا برتو قراءات العشر أيام وحان ربا إنا كوقاتو سنة أيام ربا إنا كوقاتو شيخ محمود خليل الحصري سي أيو جامعة أوسو نقضي مركي سنة كون سقال بقول كنتن إيسيديد وحو قوان صدي مركا علمي قان إنو ديب وبرتو وكو سنكا كيري برانين كليه قراءاتكي طرق دي أيو سفي عنو برتي hal sani ku qaadatay markii la gaaray 1950 markii la gaarayna imtixaan uu galay number 1 uu noqday hadana bil qiraa'at al-10 طرقا ورواية شيخنا الشيخ محمود خليل الحصري درجة سوين وسوقاري from zero صوب اللابي قرآنك إنه حفظيو قراءاتك وكو حفظيو انتا صوميلا لودي إلى أوغاري إنه نقضي مفتش عام للمقارئ المصرية أو نقضو تلابضا أوغو حيق دونتا الشيخ محمود خليل الحصري محاواي محوصة مين دونا سؤالوين كاسني حدا ربتد إلى أوغاتي جوابتو ذا وإنه سنين تصور صوتو إيو حلقة دي لباد أو قصة دي كشي كيريس الشيخ محمود خليل الحصري أو برنامج كي أها واري ميسيدي وروناكسن هكاهرو إلى سنين تصوصعت لغا قاراين وحا لغا ربا إنا دقيستي كفائديستي كعمل فشد ولا لها كرني وسي قد بسد بخيل هالنقول خير الله كسيه ننعو رسواي وحا لغا يابا هذا قف قدرتي إنو سيدي سوكرا نقضى أما كفي أنا أديق أجر جيشت أنا أجر كراهينا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما أنت وحا ماشا كسي ودينا وسوق بقبينينا ننكي لديه جري الشيخ القارئ المقرئ فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة وبرنامج عصب عن بلابي دون أولي واري ميسيدي وروناكسن هكاها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال ميل والبأدونك كجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة لباتن إيو الشنات وبرنامج كي أها واري ميسيدي ورها كاهرو اسمعين واري ميسيدي وروناكسن هكاهرو البرنامج كان لي واري ميسيدي وروناكسن هكاهرو وبرنامج أسبوع له مالين والبو سنين حل حلقة
ayaan soo sii daynaa. laba su'aal yaa loogu talagalay, hadafka ama goolka ama yoolka laga leeyahayna waa maxay? barnaamijkan waxaa loogu talagalay adigaa lagugu talagalay, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyaro caqli badan waaye, meel kastay tagaan wax ku sameeyo. sidaa darteed waxaan rabnaa inaan dhaho tahriib ha gelini, waddankaa joogtid wax ka qabso. hadafka laga leeyahay ama yoolka laga leeyahay waxaa waaye dadkii cudumada ahaa oo adduunka wax bedelay inaan taariikhdooda gadaal ugu noqono, aqrino. faqsus ilqasas lacallahum yatafakkaruun. saxaabada ma ka sheekeynayno, waxaa laleeyahay saxaabada dad waaweyn waa nabigaa soo tarbiyeeyey. intaan hadda ka sheekeeyey saxaabo ma ahan. walaalayaal, xalaqadii hore waxaan ka soo sheekeynay sheekh maxamuud khaliil alxusari noloshiisa, aabbihiisa siduu nin wanaagsan u ahaa. wuxuu samayn jiray inuu masaajidaha ilaalin jiray, inuu masaajidaha firaashi jiray. xusari inay meesha aga timid, kadibna uu riyooday, kadibna riyadii sheekha ugu fasiray wiilkaaga wuxuu noqon doonaa wiil wanaagsan, ku dadaal ee asharkii. sidii uu ashar ku geeyey uu caalim ku noqday. ugu dambeyntii xalaqada dhammaadkeedani waxaan isweydiinay su'aal. الشيخ محمود خليل الحصري عالم وينو أدونك أن لقى يقانو نقضي أسيقو عالم وجامعة كون نقضي كون سقال بقول كنتن إسديد المركات كون سقال بقول كنتن إسقال كينا وحو سوقاتي إجازو وحو كسوقاتي بالقراءات العشر متنا وقراءة وسندا وصفيع أصوبرتي كدب وحانا نيكا مشهور كنقضي عمل كو سمين دونا محو سمين دونا what is next step for him. walaalayaal, sheekheena caalimka khaliil alxusari raximahullahu tacaala markuu cilmigaas bartay gurigiisa iskama joogin. wuxuu go'aansaday marka caalam alislaami adduunkan weyn inuu soo dhex maro. meelo badan uu tegey, kuweyd uu tegey, kitaabo jeexjeexna meesha yaal iyo wax isku qasnay uu soo hagaajiyey. qofka ugu horreeyey oo qaari ah oo tegey itixaadkii muslimiinta hindida iyo bakistaanka, ninka ugu horreeyey oo qur'aanka aqriyay ayuu ahaa. mu'tamarkii ugu horreeyey loo qabtay hindida muslimiinta bakistaan lagu qabtay oo jamaal cabdinaasirna ka qayb galay, ninka ugu horreeyey oo qur'aanka ka aqriyay ayuu ahaa. carabihii markuu tegey uu asia tegey wuxuu bilaabay marka hadda yurub inuu yimaado. ingiriiskuu tegey, qasriga boqortooyada dhexdeeda ayuu qur'aanka ka aqriyay. waa qofka ugu horreeyey sida la sheego oo qasrigaas boqortooyada ingiriiska qur'aanka ilaahay kor ugu qaaday. kanaduu yimid, sidoo kale uu sameeyey asigana. muslimiinta masaajidahoodu tegay, aadaa loo soo dhaweeyey. kadibna maraykankuu yimid, masaajidaha muslimiinta maraykanka ku yaala dhan ayuu ku wada wareegay. dad badan oo maraykanka jooga ayaa gacantiisa kusoo islaamay. qiraa'adiisa markay maqleen waa soo islaameen. koongareeska maraykanka waxaa laga sheegaa qofka ugu horreeya qur'aanka ka aqriyin oo asiga yahay. united nationka ama mutaxida ama un tasaan u naqaano, qofka ugu horreeya qur'aanka ka aqriya waaye. white house iyo maraykanka ku yaalo waxay dhaheen waa qofka ugu horreeya qur'aanka ka aqriyay waaye. sheekha wuxuu leeyahay kitaabo badan oo kulligooda qur'aanka iyo axkaamtiisa iyo tajwiidkiisa ka sheekeynayso. amaa noloshiisa khaaska ah wuxuu guursaday gabar la yidhaaha sucaadi shirbiini. ilaahay caruuruu ka siiyey. caruurtaas wuxuu dhihi jiray qofkii hal layn xifdiyo ama hal sadar xifdiyo hal qirshuu siinaa. ilmaha wuu ku tashjiicin jiray inuu qur'aanka xifdisiiyo. laakiin asimaaha qofka qur'aanka xifdisiinayay lana asiga safaruu ku jiray. xaaskiisa ayaa ku dadaashay inay caruurta qur'aan barto. markii la weydiiyey layidhi caruurtaada xaaskaaga qur'aanka barayso, wuxuu yidhi waxaan u guursadayba waa intaas. qof diin leh oo akhlaaq leh oo qur'aan taqaanaan guursaday. waxaan ogaa caruurteydana ahlul qur'aan inay noqonayeen, iyadana ay macallin u noqonayso. sheekha qiraa'ada ugu dambeysay uu soo aqriyay waxay ahayd xarameynku ka soo aqriyay. markuu ka soo aqriyay waddankiisa oo masar uu kusoo noqday, caruurtiisii xaaskiisu isugu yeeray, looyarkiisu u yeeray. wuxuu yidhi xoolahan hadda leeyahay intay rabta ha noqoto
1/3 saddex meelood oo meel wuxuu yidhi waa waqf lilah, ilaaha u waqfay. waxa keliya lagu samayn karana waxaa waye masaakiinta in lagu caawiyo, dadka qur-aanka baranayene lagu caawiyo, asigoo nooloo ka dardaarmay. sheekha wuu weynaaday oo wuu xanuunsaday maalin isniin, bisha Novemberna ay tahay 24 sanadkana yahay 1980. sheekhii tii allah ayaa u timid. ilaahu u naxariiso, dembigiisana dhaaf. walaalayaal, qof walboo annaga naga mid ah wuu dhimana, maalinuu leeyahay. sidii sheekheena maxamuud khaliil alxusari uu u dhintay 55 sano ayuu u khidmaynayay qur-aanka ilaahay, inuu aqriyo ama asiga barto ama dad baro. 55 sano. adiga meeqa sanaa qur-aanka baranaysaa ama aad baraysaa? meeqa sanaa u khidmaysay qur-aanka ayaa aakhara taariikhda kuu gelayso? su-aasha markii lagu weydiiyo qur-aanka ma baratay, dadkana ma bartay, maxaa ku jawaabi doontaa? haddaa jawaab fiican haysatid oo qur-aanka meel fiican ku wadid, meesha kasii wad. haddii kalene hadda iska gaar, khayr allah ku siiyo. walaalayaal, qisadan ama taariikhda sheekhan khaliil alxusari raximah allahu tacaala faa-iidooyin yaryar ayaa rabnaa inaan ka qaadano, lacala allah inuu nagu anfaco. faa-iidada koobaad, qur-aanka ilaahay qofkii u khidmeeyo sharafuu yeelanaa, adduunkana sharafuu ku yeelanaa, aakharana inshaa allah tacaala wuxuu noqonaa dadka ugu sarreeyo, ugu darajada sarreeyo ayuu noqonaa. adduunka inuu qofka ugu fiican yahay nebigaa noo sheegay biabi huwa wa ummi sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. waxaa idinku khayr badan dadka qur-aanka barto kadibna dadka baro. qur-aanka waa hadalka ilaahay. qur-aankan qofkii barto oo karaameeyo oo kor u qaado, ilaahay wuu karaameynaa, asigana kor ayuu ugu qaadaa adduunyada iyo aakharo inshaa allah tacaala. faa-iidada labaad, haddaa rabtid aakharo dadka jannada meesha ugu sarreysa galo, qur-aanka ilaahay ku dadaal. nebiga ku salli sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, dadka ahlu qur-aanka markii aakhara tagaan oy jannada galaan waxaa le iqra, aqri, warqa, warattil kamaa kunta turattilu fi dunya. aqriyoo kor u aqri, kor u kac markasta aayad aqrisid. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, alraxmaan alraxiim, maaliki yowmi ddiin. qof walba qofkuu ka qur-aan badiyo, aakhara jannada wuu ka sarreeyaaye ku talagal. haddaa hal jus taqaanid, kan 2 jus yaqaano wuu kaa sarreeyaa, kan 5 jus yaqaano wuu kasii sarreeyaa, kan 10kana wuu sii sarreeyaa, 20ka sidoo kale. qofka 30ka yaqaano ayaa u sarreeya. qur-aanka baro, ku dadaal. faa-iidada saddexaad, adiga haddaadan wax ka tegi karin oo is aragtid inaad lazy tahay ama ay wax kaa halaysan yihiin, cala al aqal ilmahaaga ku dadaal. ninkan khaliil alxusari ilaahi ha u naxariistee, awooddiisa waxayd masaajid inuu firaasho, xoolo uu soo qaada masaajid inuu ku firaasho. taas naftirkeeda sharaf waay. laakiin cunugiisa markuu riyooda loo sheegay, cunugiisa wuu ku dadaalay, maxadkuu geeyey, meeshaanuu geeyey, ilaa marka dambe uu magac yeeshtay. fiiri, xasiirtii dalintii dhulka dhigi jiro ninku ku magac yeeshtay, laa magaciisa walaa magaca aabihiis. magaca ilaahay wuxuu caan aga dhigay magacay kunyada aabihiis ama naaneysta aabihiisu uu ku caan ku noqday. waxaa laga yaabaa cunugaaga naaneystaada inuu caan ku noqdo, ee ku dadaal, khayr allah ku siiya. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waad dhimanaysaa, adiga keliya macniba waa dhimanaa, kulligiin waa dhimanaynaa. maxaa jeceshahay in lagugu soo xasuusto? walaal khayr allah ku siiye. may meeshaan ha fiirin, adigaan kula hadlaya. maxaa jeceshahay in lagugu soo xasuusto?
خير مارتا إن لغوصو حسوستو لغوصو دعويسي خليل الحصري قال هذا إله نحرستان لنا هي شر مارتا إن لغو حسوستو والعياذ بالله ليرا وقال كي وانا ضافر مارتا مسه إن لغوصو حسوستنين بو لا خير ولا شر وزم نقطة قفكو سو دعوينا إيسن جيرين سيجي عشاء إن شاء الله وحاجة عيشة إن خيرك لغوصو حسوستو لكن جعيل كلية ما أهاني كشقي سيدي خيرك لغوصو حسوس الله خير الله كسي واسمين كرتا هوسا اسودين إلهي أود إي مسكحي عقلي وكسي وحابلان إنو إسنين تصوصوات إيو حلقة عصب وقف عصب أن كشيكين دون برنامج كينا أهواري ميسيدي وروناكسن حكاها إلى إسنين تصوصوات لغا قاراي أديغنا وحا لغا ربا إنا دقيستid كفائديستid كعمل فشid ولا لها كلام وسيب البسد بخيلها نقول خيرك أكتاد يستاجن خير الله كسيه والله سماها جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمن جميل كان فيه سمونا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله